inuu Axmedka wax ka jira oo waxa weeyaan ma leh haddii waddanka dowlad baa ka jirta haddii la doonayo Somaliland qurux badan waa in daahir riyaale waxa weeyaan codka la siiyaa sidaas ayaa waxaan ku raacno ku tashanay waxgaradka iyagii garxaajis iyo waxa weeye siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka iyagii ee ugaaska ciise oo magaciisa inuu Mustafa la yiraahdo aan malaynayaa ninkaasaa markii ugu horreysay ee dagaalka ku baaqay oo cilaamiyey oo ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda waxaan ku ka sheegay inay dagaalamayaan way samaroon dagaal soo qaadayaan ugaas doodina waxa weeye daanuguna difaac baan ahay ayuu yidhi daawadayaal barta si toosa noogala socotaan warbaahinta iftiin t v waxaa khadka si toosa ugu jira afhayeenka dhallinyarada cali saciid oon wax ka weydiinay duulaanka lagu soo qaaday degmada saylac iyo go'aamada isbedbedel kale ee ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha iyo arrinta la xidhiidha binu axmed maxay tahay fariintaad bulshada halkan u marinayso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warbaahinta iftiin t v iyo shindheer cabdiraxmaanba aad iyo aad baan kuu salaamaya adiga warbaahinta daawadayaashaadaba ee ku xidhan idaacadda waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhowr qodob qodobka ugu horeeya foosto ayaa waxa laga soo riixay fiila Soomaaliya ama fiila Wardhiigley waxay foostada waxa aabii hooyo ah madaxweynaha fiila Wardhiigley fadhiya Xasan Sheekh Maxamuud fiqi iyo dad noocaas ayaa waxaan ku uri gacan yarayaalo ah markii Somaliland ay waxaan ku uri siyaasadeeda ay kaga adkaatay arrimaha dibadda ayay waxay damceen inay barnaamij kale waxa weeyaan dadka wax magaratadu ay isleeyihiin ama siyaasiyiinta ku fashilmay 40 sanadood inay ummadooda waxaan ku uri hogaamiyaan oo ummadooda waxaan ku wax u taraan iyagoo horumarka iyo waxa weeyaan dhaqaalaha iyo nabadgelyada ay Somaliland iyagoo ka xun ayay barnaamij binu Axmed oo ay ka wadaan ama micnaheedu uu yahay isaaq iyo ciise ayaa isku hooyay isku aabba marka dad u soo dhiibeen dad ka soo jeeda waxa weeyaan deegaamada gobolka Awdal oo markii hore doomeer ahaa oo dalkooda iyo dadkooda waxaan ku uri doonayay in waxaan ku uri qaxa iyo dhibaato iyo waxaan ku uri haraad iyo biyo la'aan iyo waxa weeyaan in masaakiinta birmageedada ay dhibaato iyo dunuufaha qalafsan la kaca ku fayeenay qori dab la geliyaan oo marka hore waa tilmaanaa waxa uu cunsur afka lagama dhowro ee aynu wada garanayno barnaamij noocaas ay dadka u soo dhiibeen barnaamijkii reer Boorama lagu soo dhex tuuray reer Boorama kale waxgaradkooda iyo madax dhaqameedkeeda iyo siyaasiyiinta iyo aqoon-yahankeedu waa barnaamijka waa ku baraarugsan yihiin qodobka halkaas kaga baxay marka arrinta inuu Axmedka wax ka jira oo waxa weeyaan maaragtay ma leh haddii waddanka dowlad baa ka jirta dowladda Somaliland ummadda halka ku dagaalamaysa ee waxa weeyaan wada dhashay ee inaan yaabtigeeda waa u dhex waa gacanteeda midig gacantooda bidix waa dad waxaan ku labada muwaadiniin yihiin waa dad waxaan ku uri aanu jecelahay waxaan ku uri inay nabad ku wada noolaadaan 500 haddii maanta laga dilo samaroon ciisana 500 waxaan ku laga dilo heshiisu iyo waxaan ku nabadgelyo ba ka dhici doonta oo dadkani waxaan ku uri badan way dambaysaa way wada noolaan doonaan 100 sanadood horena waa soo wada noolaayeen inta adduunka la laabanay waa wada noolaan doonaan ciise iyo samaroon waxa aan u sheegayaa maanta ninka isinka ah waxa weeyaan dagaalka soo waarday ee dadkiisa dagaalka gala waxa weeyaan u danayn maayo inankiisii dagaalka keeni maayo familigiisa keeni maayo laakiin dad kale oo masaakiina waxa weeyaan uu suldaanu yahay oo waxa weeye dunuufo qalafsan la kaca ku faaya oo biyo aan haysan oo baad aan haysan ayaa hadhowtoo waxaan ku intuu rasaas iyo waxaan ku hub soo dhiibo markay ku dhabeelaan ay ku lixaad beelaan neefo ku noqdaana aan waxba loo qabanaynin waxaan ina leeyahay xukuumadda Somaliland waa idin dhex labadiina muwaadiniin baa Ciise iyo Samaroon ba hadda tihiin isku deegaana Ilaahay waa idinku abuuray inaan yaabtigiina waa tihiin arrinta waxa weeyaan waa in waxaan ku uri aqligu uu shaqeeyaa waxa weeyaan maadaama haddii waxaan ku uri heshiis arrinta ka dambayn doono waxyaabo waxaan ku uri dadka masaakiinta ah ee labada dhinacba ay u dhintaan anigu garan maayo qodobkan halkaas kaga baxay qodobka saddexaad waxa weeyaan xukuumadda maanta xisbiga waddan ka dhalatay haddii aan nahay beesha garxajiis
ilaahay naxariisna ka waraabiye markii madaxweynihii cigaal uu dhintay waanu tashanay oo waxa weeye madax dhaqameedkayga iyo aqoon-yahanka iyagu waxay iska weydiiyeen future-ka Somaliland marka waxaanu ogaanay oo waxa weeyaan aanu ka talinay maadaama maanta waxaan ku uri nin saaqi oo kursiga waxaan ku uri u soo xukumayay horena waxaan ku Cabdiraxmaan Tuure saaqi u soo xukumayay Somaliland qurux badan aanu doonayno ummadana inay cadaalad waxaan ku loo sameeyo aanu doonayno waxaanu wax kasta hay'ado ku qaaday soo maanta ma sharaxnaa ninka lagu raahdo Maxamed Axmed Siilay ilaahay naxariistana ka waraabiye iyo Daahir Riyaale Kaahin iyo Cabdiraxmaan Cirro haddii la doonayo Somaliland qurux badan waa in Daahir Riyaale waxa weeyaan codka la siiyaa sidaas ayaa waxaan ku dhaanu ku tashanay wax garadka iyagii garxajiis iyo wax weey siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka iyagii taasina way dhacday walxamdulilaahi rabbil caalamiin Daahir Riyaale waanu keenay xilkii 7 sanadood waxaan ku halkaa ku dhaantiinayo kulan dheereynayay xukuumad wanaagsan oo waxa weeyaan maaragtay dadkii cadaalad wada gaarsiisay oo Somaliland qurux ka dhigtayna waa ka tagay isaaqii kale markaan dee yara kaftamo isaaqii kale ee sharaxnaa ee waxa weeyaan ninkii lagu oran jiray Faysal Cali Waraabe oo nin garxajisa geedkaasaan ku xidhnay annagoo doonayno Somaliland qurux badan siiraayo geedkaasaan ku xidhnay ilaahay naxariistana ka waraabiye oo annaga waxaan ku halkaa annagoo habryoonista laabta garaacana lahayn Daahir Riyaale dhabar libaax buu ku fadhiyaa dee maanta waxaan ku uri inkastoo codkii aan siisano abaalkii soo celiseen haddana dee doorkii hore horta waxaan ku uri dee waana jallaafayseenoo waxa weeyaan waa nagu adkayseen doorkii dambe ayaa waxaan ku uri deegaamada beesha gudabiirsi noo hagar baxday alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddana bahashiiniyow waa dabadaa ka yara xumayseenoo waxa weeyaan sanadba waxaan ku uri annagoon xilkii haynin ayaa durdaba mucaaradad cir iyo dhula waxa weeyaan hanjabaad xasan sheekh baan kasoo rogaynaa boorame maxamed abiibo waxaan ku dhaanu la yaabanay qaabka wuxuu wado ina maydhano oo waxaan ku qaabka wuxuu aanu la yaabanahay waxa weeyaan haddana bahashi waxaan ku uri wanaagii iyo waxa weeye dad sheegaantii berigii hore aynu samaysanay waxa weeyaan dee bahashi haddana imaka qaabka dee waxa weeyaan wuxuu socdaan ama ay nagu muuqataa waxa weeyaan qaab dee aanu la yaabanahayo waxa weeyaan dee aanu leenahay waa samaroon bal maxay doonaysaa maxay diidaysaa waayo waxaa la yidhi gaalka dil gartiisana si kulley shaqaaqadu markii buurama ka dhacday waxa weeyaan dhaqanka iyo odayaasha iyo aqoon-yahanka waxaan kuri samaroon waxay yidhaahdeen 3 qodob bay soo jeediyeen 3dii qodobba xukuumadda Somaliland ama Cabdiraxmaan Cirro iyadoo aan hareeraha saa u eegin ayay 3dii qodobba waxaan kuri duuduub ku qaadatay qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa ciidamada ka saara magaalada qodobka labaad wuxuu ahaa bari saabkii xoday bedela qodobka saddexaad wuxuu ahaa bari saabka waxaan ku uri saylac bedela ama salal bedela waa la bedelay dee waxa weeyaan xukuumaddu way idin dhaga fududaatay oo waxa weeyaan dee bal dadkaasi wax allaale waxay odayaashoodii dhaqankooda soo jeediyaan dee waxa weeyaan maadaama waxaan ku uri ay yihiin dad reer Somaliland ay xaq u leeyihiin in la dhagaysto dee xukuumaddu waa idin dhaga fududaatay hase yeeshee imaka waxaan ku uri dee kolley dee bahashu ciise imaka wuxuu doonayo iyo wuxuu diidayo waa la garanaya ciise wuxuu leeyahay buugayga dee deegaan baan hawaan ku dhiganayaa taasna xukuumaddu haddii waxaan ku uri dee amnigii iyo dadkii wada noolaa ay waxaan ku uri khalkhal iyo amni darra ay ku abuurayso inkasta oo marxaladood dee kala duwan markii hore soo martay haddana waa joojisay dee buuggii haddii la joojiyey maanta waxaan ku uri samaroon dee waa inay soo caddaysaa bal waxay diidantahay waxay doonayso oo waxa weeyaan dee in lagu dhex jirana dee waxaan ku uri reer Somaliland oo dhami waxaan ku uri waa la ogyahay dee waxa weeyaan xukuumadda waxay idinka fadhidaa dee ama colaad qaata ama nabad soo qaata qodobkayga ugu dambeeya waxa weeyaan haddaan ahaan nin isaaqa
weliba afhayeenkii dhalinyarada beesha cali siciid aan ahay dagaalkaa labadaa beelood ka dhex aloosan ugaaska gudabiirsi ugaas doodi ma qaldana isagu imankana waxaan ku uri kolley waxaan aaminsanahay anigu nin qabsoomaya oo waxa weeyaan maaragtay wax kasta oo nabaddaa waxaan ku uri loo maraayo jecel wixii ay ku dhammaanayso colaadaasi una diyaar ah ayaan aalaankaa ka aaminsanay ugaas doodi qaladkuna waxa la islaam alloona rusha islaam allow nooga qaado markii horeba dii dagaal kumuu dhawaaqin ugaas doodi ninkaa fadhigiisu uu yahay diri dhaba ayara dhalinyarada ah ee ugaaska ciise oo magaciisa inuu mustafa la yidhahdo waan u malaynayaa ninkaasaa markii ugu horreysay dee dagaalka ku baaqay oo cilaamiyey oo ummadda soomaaliyeed dhexdeeda waxaan kuri ka sheegay inay dagaalamayaan oo ay samaroon dagaalka soo qaadayaan ugaas doodina waxa weeye de aniguna difaac baan ahay ayuu yidhi waana waxaan aniguna de odhan lahaa qof kasta oo waxaan ku uri de caqli lahina marka lagu idhahdo dagaal baan kugu soo qaadayaa uu kaga jawaabi lahaa ugaaska ciise waa ugaas direed weeyaan waa ugaas waxaan ku uri in uu ka shaqeeyo wanaagga iyo waxa weeyaan dadkaa wada dhashay ee inan iyo abtigeeda inuu dhinac kasta wax ka eegaabay ahayd hadalkaa ugu horreeyey ee waxaan ku uri saxaafadda uu soo mariyey anigu ka aragti ahaan iyo ka waxaan ku uri aqoon-yahan ahaanba waa arrin aan aad iyo aad ula yaabay ayuu igu noqday dhagiba jaamba ee leegaatay waxa weeyaan dhaqanku ama isinka ama waxa weeyaan dee salaadiinta laguma aqoon hadalkaasoo kale dad wada dhashay oo inan iyo abtigiya inuu waxaan ku uri yidhaahdo ha la islaayo oo waxa weeyaan ha la dagaalamo waa wax arrin dee qof dhaqani dee inuu arrin waddadaa waxaan ku uri maro waa waddo aad iyo aad waxaan ku uri dee u xun oo waxa weeyaan maaragtay qof kasta oo waxaan ku uri caqli lahi uu damiirkaaga uu diidayo marka iminka iyo haatanna labada qof ee waxaan ku uri arrinta kani ay ka tolantaa waa labadaa ugaasoo laysu keeno waxa weeyaan la yidhaahdo wadahadla oo lagu dhexdhexaadiyo nabadda waxaan ku uri inay qaataan oo lagu cadaadiyo waxaan ku uri ummaddaasi sidai waxaan ku uri ay nabad u heli lahayd laga shaqeeyo somalilandna ay ka shaqeyso dhaqanka somalilandna ay ka shaqeeyaan waxgaradka soomaaliyeedna ay ka shaqeeyaan waayo maanta waxaan ku uri dhiig ummad soomaaliyeed oo daadanaya wiil soomaaliya oo waxaan ku dhiiggiisu daadanaya dee waxa weeyaan caqliga saliimka wuxuu uu ku farayaa in aad nabadayn iyo waxa weeye soo jiid iyo waxa weeye cadaalad dhexdooda aad kaga shaqaysid aad baan u salaamaya warbaahinta waxaan ku uri iftiin tv iyo cabdiraxmaan jidhe cabdiraxmaanba